والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا ريال وحان halkan marka hore aad ugu faraxsanahay xafladda qiimaha badan leh aynu maanta ku furayno masaajidkeena ee goble aynu ku furayno aad iyo faraxsanahay iyo masharafta karaamada leh ee soo taxriibtay ugu horeeyo wasiirka waqaaftiga diinta runtii safar fog soo galay ee Sheekh Maxamed Cali Geedi aad iyo aad u soo dhaweynaya maamulka gobolka gudoomiye Mustafa oo soo runtii shaqo ku maqal soo ordo soo degdegay Sheekh Albaladka oo isugu marna ka maqnaan arrimaha ummadda iyo gobolka loo qabanayo sidoo kale culimada dalka joogta maamulka degmada maayarka xildhibaanada oo runtii la arki karo waxa ay qabteen horumarkooda marti culus oo inaga timid magaalada Wajaale oo runtii wax badan loo qabatay intaas oo dhan iyo inta joogta iyo inta iloobayba waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada ilaahayna waxaan ka baryaa masjidka ugu barakoobo ee diinta kor u qaada ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu nooga dhigo waa marka koowaad masaajidkan gobolka la yiraahdo sida la sheegayo inkastoo la iga aqoon badan yahay waxa la leeyahay waxa uu jira 103 sanadood dhismihiisu ayuu jira ka soo bilow marxaladii ugu horeysay ee dhismihiisa amaamuday Xaaji Khayre iyo Sheekh Ali Jawhar oo runtii juhdi badan geliyay wixii ka dambeeyay marxalado badan oo dhul loo iibiyay guryo loo iibiyay oo mataqaana Sheekh Abdulrahmaan Cilaaya qaybta badan lahaan jiray iyo in la midaba iyo Sheekh Maxamuud Caateeye oo in ka badan 40 sano imaam ka soo ah intaasba taariikh aad u quruxsan bay ahayd oo wanaagsan dhammaantood waxaan leenahay inta nool ee maanta ka nooreeyay Sheekh Maxamuud Caateeye waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta dhimatay jannada la geeyo inta noolna ilaahay adduunyada miisaan wanaagsan oo xasan hasi aakhirada Allah wanaajiyo waxa soo haday masaajidkan dib u dhiskan dambe ee la sameeyay qiimaha badan leh dib u dhiskan dambe runtii waxa la oran karaa waa loo baahnaa waxaana dhiirada koowan ilaahay xasuubo laha xaaj Juli Faarax oo runtii ku dhiiraday inuu masaajidkaasi dumiyo qaybtii ugu horeysay ballaarintiisa ku dhiirado hantidiisa shakhsiga la geliyo waxaa isaga u barakeeyo isaga naftiisa maanta waana cadceed casar waxaan u rajeynaynaa ilaahay adduun iyo aakhira inuu guulaysiiyo isaga iyo awlaadiisaba waxaa halkaa soo dhex galay oo runtii tallaabo qiimo la qaatay Xaaji Muumin Jaamac iyo Samaala Group oo runtii aan ka hadhin ubadkiisa isaga xaaskiisa runtii ma aanay kala hadhin inay mashaadka taageero xoog la ku bixiyaan iyo aniga oo markii dambe soo galay saddexaad dabaq baan u dhisnay saddexaad dabaq ilaahay waxaan ugu baryeynaa in uu mashaadkan cimrigiisa dheereeyo dhammaan intii wax ka geysatay intii hanti ku bixisay intii tala ka bixisay iyo intii ka qayb qaadatay intii dhistay intii qurxisay runtii ilaahay waxaan ka rajeynayaa dhammaanba in uu wax uu qabto haddii aanu Sheekh Xaamud hoggaanka ama isku duwaha awqaafta gobolka Awdal haddaanu gacan nasiinin haddaanu ku dagaalamin runtii wax badan oo ma socdeen wuxuu ahaa birta xadiidka ah ee dhactaaynad buu ahaa ilaahay waxaan ka rajeynayaa camalkiisa saalixa ilaahay ugu daro oo ilaahay wax badan ka siiyo sida oo kale wasiir Khaliil oo maanta in martina inoo la fadhiya waxa uu ka geystay wax aad iyo aad u culus waxaan xusayaa dad badan oo waliba aniga shakhsiyan markaan masaajidka galayay aad ii gacan qabtay sida oo kale haddaan yar kaftamo waxaan ahaa nin ganacsiga oo xoogaa qolada loo yaqaan qaadama dhargaha dhakhtarku wuxuu buu eegaa inta uu wax ku masruufa marka dhiirin masaajid maan gali kareynin haddaanan deyn galin taariikhda markii ugu horeysay aan qofku la deynisay bay ahayd waan ku tababartay marka waan iska bixiyay wax badan oo kamid ah marka ilaahay waxaan ka rajeynayaa in uu dhamaanteenba in nasugo dhamaanteenba walaalayaal masaajidkaasi ilaahay hortii waan u dhisnay maanta laga bilaabo markaan furnay anagu hanti baan u gelinay waa la dhisay anagu ma lihin waa baytullah wax ummaddu ay leedahay wasaaradda awqaafta intu wakiil ka mas'uul tahay
annaguna cumaash iyo shaqaale ka shaqeynay baan nahay cid baan wakiilaan samaysanay shaqaale ah oo nu magacawnay kuwaas waa shaqaale lana eri karo lana deyn karayo guddi mushid baan samaynay oo saddexdii oday dhistay ka sheegay xaaji xaamud ugu horeeyo iyo xaaji muumin jaamac iyo aniga ku jira waxaan kale oo ka tagi weynay mas'uulkii waqtiga dheeraa ee mashaakil soo hayay oo xaaji محمود عاتية أو هنتي فاهية أو وح أو قبل كسوقة مجال خير الله سيو إيوه حسن دجعلين أو أها حنتي بدل نقول درق بدل نكقبتي دمان وحن أرجينا يا إلهي واحد كي إن أو قبالك عيدكتان الدنيا آخرة بوكسيو هذا ولا ليال مساجد كنا تاريخ ظهر صولها تاريخ لبعض بوله عجيبة وحوقها مساجد ك إلا علماء ما أنت ضلكوا كهنا علم وجود ميزان كي شيء وجود نوقي مبنية هي شيخ عبد الله الشعري جوهر مدرسة ديك بحمله أنا أقول لك أنت هرجع علاقة بكتير كنت علمي بضبط الفائدة وحوها كان عدها كارف الجذا نوح برتك ومجال الدور متشوق وحكبرن أنا وقرن ما يبا هذا عند إيطاليا رجل السنة وبعض سنة وقف برتي أنا جري مركا خرطة بوس كان مبوحين دونا إلهي وحن كرجين يا بوس كنا مبوحينه أنه كسي في عنا أن طلابة وناكسين إنه الرئيسي مثل ما كسي في عنبا إلهي ذيك أنه قاضي علم قال له برتو وحن كل الله قاضينا إن مساجد كاسي قوب لقفا في خلاف حمان عيب إن أنه نقنن وحن الله قاضينا إن منهج كأهل السنة والجماعة إيه مذهب الشافعية دين تدلك وحيستو أي تهي أصل كماشا الله بقيه وان عطينا sidoo oo kale waxaan cadeynaa inaanan raali ka noqon doonin in cid laga caayo dawladda laga caayo aflagaado kooxeed laga geysto qabaa'il laga aflagaadeeyo ballan baan qaadaynaa waxaan leenahay qofkii inta wataayaan ku soo looguin mashaayidkaas ninkii diin dadka baraya kelimad khayr loo sheegaya soo dhow ka maarno cilmiga ka maaranay qodobka kale waxaan la hadlayaa culimada magaalada Boorama idin ka maarano waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada wixii cilmi aad sheegayseen cidna kama xidhna yaanan burito la oranin haddaad naga maqnaataan cid baa meeshaas ka maqnay annagu cid kasta diyaar barunahay mas'alada aan diidanahay waxa weeye kooxaysi waxaan diidanahay qoqob waxaan diidanahay isku dir intaas diidanahay waxaan doonaynaa ummad la mideeyo khayr laga sheego iyo cilmi dadka la baran doonaynaa sida oo kale hantida aan gelinay sida uu xaaji xaamud anagoo doodayna halkaan noogu dhaxyiri waxay ahayd warwaa goob ganacsi maaha masjidku iyo waxaan ballan qaadaynaa wax naga sii gala mooyaane inaan waxba laga dooni badee masaajid weeyaan laakiin inta gudiga dhisteynta ka shaqeysaba inay wax ka sii gala mooyaane inaanan mataqaanaa wax kala jiri doon lagaga hadhin meeshaasoo masaajidka maalinba inta soo baxda leerka baqtiya marwaxada xumaata biyaha go'a sida wax noqdaan nadaafadiisa oo shaqo u baahan inaan lagaga hadhin wax walba laga qabto ilaahay idinkii sida oo kale waxaan dareemaynaa walaalayaal inaad nahraagsateen oo dood badan ay jirtay war maxaa ku dhacay masaajidka walaalayaal ma aad xumayne anaguna ma taqaanaa ismu raajinne de maanta waa dareemi kartaa sida masaajidka u yar qurxineen hagaajinaynay marka dhismona waqti buu qaadanayaa cabirka masaajidkuna waxa weeyaan 850 mitir weey badkiisu ama sidaa wuxuu yahay 35 sidaana wuxuu yahay 25 sidaa awgeed 35 mitir oo saddex dabaqa waad garan kartaan shaqadooda iyo amalkooda iyo waxay noqonayaan maanta oo furnay xataa waxaan dareemaynaa in qarba badan uu nagu jiro haddana waxaanu ka geysan weynay inaanu xajka ciidiisa soo dhow inaanu carrafo ku tukanno ayaan doonaynaa waxaan la dardaarmayaa walaalahayga shaqaalaha ee ka shaqeyn doona waxaan leeyahay walaalayaal masaajidku maaha masaajid ku yaala xaafadda waa in la kala bartaa masaajidda ku yaala xaafadaha marka la eedaamo waa la sugaa qofka laakiin kan waa suuqa bartankiisii waliba waa suuqii danyarta waxa weeyaan ninku waxa soo dhaqaaqay bacadle bacbu meel soo dhigtay wiciidiba ka soo dhaqaaqay waa in salaadaha loo dedejiyo waa in la eego markastaba shalay waxaan ku doodaynay salaada duhur marka la eedaamo waqtigeeda la tukanayo ma aha waqtiga la sugay salaada hal yar dheereeyo sababtu waxay tahay suuq oo dhan waa la soo xidhayaa nin walba uu soo xamaan qaadanaya si markuu tukado
uu tago gurigiisa u qado doonto waa in markaa in yar la sugaa salaadaha kalena wiciyadii buu qofku sii eegayaaye waa in markaaba loo dhaqsadaa waa dardaaranka shaqaalaha weeye oo aad loogu dhimriyo dadkaasi mataqaanaa jooga waayo faras magaalihii waa lagu soo yaacayaa nin waliba camal buu ka soo dhaqaaqay waa in loo dejiyaa culimada quraanka akhriyaysa ee mataqaanaa waa in loo dhimriyaa oo dadka loo dejiyaa tujina salaada kuwa salaadaha aan jahriga ahayn tujinaysana waa inay salaada dhimriyaan bay noqonaysaa sidoo oo kale waxa aan ku dardaarmaynaa waxa weeyaan in loo dhimriyo dadka danyarta waxaan leenahay xagga dadweynaha Boorama masaajidka anagu dhismahan lahayn laakiin aan lahaan masaajidkaasi maanta Boorama ka dhaxeeya in la ilaashado nadaafadiisa shaqadiisa amalkiisa in la qaybsado waliba cid la hadlaya waa inta jaarka la masaajidka jaarka amira wuxuuna ku yaalaa faras magaalada bartanka magaalada in la ilaashado oo shay kasta oo nuqsaan la sameeyo nin baa shalay yimiday wuxuu igu yiri halkaan ma jirtee ma la masaxo waxaan ku yiri waa magacmaha ku go'an idan waynu wada leenahay masaajidkii aanu mali qofna ma lahayn wixii ceeb aragto astur markaaba idan meel aan wada leenahay weeyaan saas weeyaan dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa iyadana maamulka iyo gobolka iyo degmada weyn aad bino la shaqeeyo waxaan ka codsanaynaa waxa weeye waa halbowlihii 4000 oo qof ayaa mashaadka soo galaysa idin waxba naga hakran hadaba dariiqadiisu aad bay u xidmaan markuu mashaadku buuxo 4000 oo qof baa soo galaysa haday 20 qof oo kaliya ay wataan gawaari meel ay dhigtaan ma jirto marka waa in loo diyaariyaa baarkinadii oo wajahada koonfureed wajahada galbeed wajahada waqooyi ay noqotaa marka sama nadiif dadka ama curyaanka ah ama gaadiidka wata ay dhigan karaan oo ay ku tukan karayaan walaalayaal gabagabadii waxaan rabaa inaan sheego guddi baan magacawnay iyo waxaan magacawnay shaqaale magacawnay inta aan magacawnay dhamaantood waqti bay shaqeyn doonaan masaajidka laakiin dadweynaha Boorama ee loo dhisay baa iskale waxaad noogu soo ducaysaan annaga ilaahay tawfiiqna waafajiyo oo noo xifdiga masaajidka intaan nool lahay waqti la gaarsiinayo ilaahay inuu sugo idinkana waxaan ka codsanaynaa inaad nala shaqaysaan oo wixii ceebaale ku soo baxay masaajidkaasi aad naga taageertaan sida aan ka codsanayno oo wasiirkana kula hadli doono in inta meesha joogtaan loo quweeyo oo shaqaalaha iyo dadka kale ka shaqeynayana naloo gacan siiyo waxaan aad iyo aad runtii uga xumahay inaan mar dambe ogaanay in dumarku ay leeyihiin wax badan suuliyaal baan dhisnay laakiin cabirka aan sameynay dumarka jooga suuqa wuu ka yar yahay waxaan ballan qaadaynaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh suuliyadu sameeyno oo u diyaarino waa raggi iyagu damaanad bay haystaan goob kasta tii karaan magaalada ku xeersan laakiin halkan waxaan mataqaanaa aad baan u yareynay inaan dadaalnaan ballan qaadayna dumarku u dadaalno oo ugu dhaxsanno insha Allah ta'ala walaalayaal halka waxaan ku dhameynayaa khudbadii iyo gabagabadii xafladan qaybta xagga iyaga guddiga ahayd guddigaasi runtii waxaan markaas u duceeyay anigu Sheekh Maxamed Caateeye uguma duceeyay si kale weeyaan waqtiga dheer oo kumintiday mashaahidkaas iyo sidoo uu soo hayay oo runtii sharaf laahay waan ugu duceynayaa isaga ilaahay inuu khayr ka siiyo sidoo oo kale labada oday ee waayeelka ah ee runtii go'aanka adag qaatay Xaaji Xaamud iyo Xaaji Muumin oo aan korto de qeyrkooda maanta magaalada jooga hanti xoolo haystaan dhiirinida intaas oo 100,000 nin waliba isagoo jeebkiisu xun yahay oo ku galay haddana waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa intii ka qayb qaadatay iyo intii wax ka qabatay in loo duceeyo mooye wax kala meel ilaahay abaalkooda adduun iyo aakhira waxa hagaajiyo adduunyada khayr iyo barwaaqo ku siiyo aakhirna ilaahay jannada ha ugu bishaareeyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh